arinta Djibouti oo Facebook way kooban tahay mogtahay waxaan jeclahay inaan saddex kalmadood oo kooban aan ka iraahdo laakiin gunle su'aasha waxaan isweydiinaynaa walaalkeen Ismaaciil Cumar Geele muxuu uga cabsoodaa Facebook sida uu uga cabsoodo odayga Suudaan ka taliya Umar al-Bashir Facebook sida uu uga cabsoodo odayga Masar ka taliya Sisi Facebook sida uu uga cabsoodo odayga Sacuudiga xukuma ee imika amiirka Maxamed bin Salman sidoo uga cabsoodo odayga amiirka ee ka taliya Imaaraadka Maxamed bin Zayed sida uu uga cabsoodo maaratay nin wal oo dictator ah maxay uga cabsoodaan Facebook su'aal khatar su'aal caadi ma aha waxa uu tihiin Facebook wuxuu ciyaaraa saddex door imika marka laga yimaado in la isku caayo laga yimaado ina heesa laga saaro laga yimaado in lagu kaftamo laga yimaado in lagu shokaansado lagu daraageeyo laga yimaado waxaas oo marka laga yimaado Facebook wuxuu ciyaaraa saddex arrimood anbaba waxa tiraahdaa baarta meeshan ay bulshadu ku sheekaysanayso oo dhan tawaasul ijtimaaci ay ka dhacayaan oo dhan reeso sosiyogu ka samaysto oo dhan meesha bulshooyintu ay ku hasaawayso waxay ciyaartaa saddex arrimood kow arrinta koowaad maxay waa meel macluumaad la isku weydaarsado adiga oo macluumaadkaagii aad doonaysa sidaa doonaysa u tabinaya waxa aad doonaysa sidaa dooni macluumaad uga soo qaadanaya oo dhageysanaya qofna kuuba siinayo oo kuma oranaya waxa ha cabin waxaana cab qofna kuma oranaya waxa sheeg waxa ha sheegin bikulli xurriya waa meesha quru qofku isku dareemo inuu yahay xor weeyaan marka waa meeshaas weeyaan muhiimad waxay leedahay waa meesha arinta labaad waxa weeyaan waa waxa loo yaqaano al-i'laam al-badil weeye idaacadihii taqliidiga iyo telefishinadii buu xidhayaa kan baa noqonaya meesha dunidu ay war isku siiso waxa lagu tartami doona waxa weeyaan waa halkan ninka halkan ku badiya ayaa badiyay ninka halkan lagaga badiyana waa laga badiyay marka arinta labaadina ay leedahay meesha waa taa weeye arinta saddexaad oo iclaamku leeyahay waxa weeye Facebook uu leeyahay waa maxay Facebook waxa weeyaan wuxuu simay ninkii adduunka ugu cilmi badnaa iyo ninkii adduunka ugu cilmi yaraa wuxuu simay ninkii xoolaha haysta iyo kii miskiinka maxaa yeelay mutacallimkiina uu hadlayaa jaahilkiina uu hadlayaa waxayna ka wada hadlayaan wax isku mid ah awal toole marka laga hadlayo qadiyad idaacad nafteeda ixtiraamaysa sida CNN oo kale ama BBC oo kale ama VOA oo kale ama maxaan ku dhahdaa Al Jazeera oo kale idaacad nafteeda ixtiraamaysa waxa uu yeedhaa qof muxtarama oo hadalkiisu qiimo leeyahay waxna sheeg kara laakiin Facebook wuxuu yeedhaa qof wal oo raba inuu wax sheego marka saddexda shay buu Facebook kaga duwan yahay waxa kale adduunka ka jira qofna male waa la leeyahay laakiin waxa lagu diiday in waxyaalo mamnuuca waxa kale oo dhan waa lagu ogolyahay dad baa qoray fiqiga islaamkana waa laga qoray fiqhu Facebook baa jira fiqiga Facebook maxaa xaaraana maxaase xalaala marka waxaan jeclahay marka maxay dictatorada sida geelo kale Facebook uga cabsoodaan oo dadka Facebook ka ah rumuusta sampoolada ka ah ay ummadu dhageysato amba waxay sheegayaan runa noqdo ama been ha noqdeen la dhageysto maxaa loogu tilmaamay dadkii walwaalaa ee wax laaqayay oo looga cabsooday su-aashu waa taas weeye waxaa keenay waxaad ogtihiin culummada sociologu iminka waxaa halkan ku hayaa kitaab baan ku hayaa kitaabkan waxaa dhahdaa magaciisa anigu ma akrin kitaabkan xaaskayga ayaa jaamacadda ku dhigatay laakiin rasheershada ku dhex jira buugan akaademiyadda waxaa soo saarta Quebec jaamacadda Quebec ayaa soo saarta waxaa dhahdaa research social baa dhahdaa de la maaragtay wuxuuna ka hadlaa arrimaha kiltiirka iyo maaragtay waxyaalooyin fara badan oo dhinaca bulshada waxaan aad ula yaabay waxa weeyaan oo inaan isla eegna dadkani iskama hadlaan reer galbeedku waxaa halkan iigu qoran oo iigu jira arrimo aan aad ula yaabay oon ka fajacay waxa ugu horeeya waxa weeyaan ka fajacay marka cinwaanka uu bixiyo ninkani la formation de l'information la formation de l'information information sida loo sameeyaa iyaa sameeya formation iyaa sameeya informationka kesam sida loo sameeyaa meesha kale aad iga yaabisay waxa weeyaan meesha uu u bixiyay la critique de la méthodologie wax yaab leh waxa weeyaan méthodologiga wax loola dhaqmo ya sidee baa loo critiqueeyaa sidee loo critiqueeyaa waxaa kaloo meesha ku qoran
structureka uu leeyahay de recherche marka wax la baarayo structureka la raaco systemka la raaco ayuu ka sheekeynaya waa buugga intaa leeg oo arkaysiin waa imise buuggan markaas aada eegtid waxa uu noqonayaa 750 bug 750 bug waxaa laga hadlayaa arintaasaa lagaga hadlayaa oo lagu baaraya marka annagu waxaan u baahannahay markaan geeska africa fadhino bulshadeena inaan baadhno bulshadeenu waa laba nooc bulsho ku barbaartay dowlad la-aan ku barbaartay fawdo siyaasiya hoos fadhida odayaal qabyaaleysti ah baayac mushtar diidan dowladnimo waa waxa ka dhacay soomaaliya weya soomaaliya waa systemku waa saas weya waxaa wadanka dhulkeena jira mid taa ka duwan oo ah dad ku barbaaray dictateernimo hoostooda naf hayn dad hayn dhul hayn dhaqaale hayn waxba hayn sida Djibouti Ethiopia iyo Eritrea marka labadan yaa taala gobolada qaar Soomaaliya kamida ama dhulka Soomaalidu degta kamida waxay keeneen arinta mid u dhaxaysa guul bay keeneen laakiin daqaaq in dilaaqadiis inay xoog u dhaqaaqaan waxba hor yaala waxa kamida Somaliland Boorama la fadhiistay horna waxaa la fadhiistay Burco waxaa la gaaray in reeruhu wada noolaadaan dowladna samaystaan Puntlandna saasay samaysatay laakiin waxaasi weli indilaaqadiiba dhaqaaqila xiinkiiba yaa kici kari lahaa qasab maaha in lagu ictiraafo laakiin waxaa qasaba inaad guul gaadhid weeyaan marka arrimahaas waxa weeyaan waxay inooga baahan tahay inaan diraasaad cilmiya oo dhinaca bulshada ah oo cumqi loo gun la-aan sameyno okay wadanada Soomaaliya waa Facebook waa xor weeyaan qof walba wuxuu doon u qoraa wuxuu doon ku hadlaa ilaa aan aragnay gabdho isqaawiyo soo dhigay wal ciyaadu billah oo Soomaaliyeed oo xitaa dadku qaarkood u baahan daweyn wax walba waan aragnay ilaahay maaragtay dadka ahadeeyay dhinacii kale tageen dhinacna waxaa iminka loo yeedhay ciidanka Djibouti oo dhan wixii jiray dubaad maaragtay darajo sare lahaa ciidanka oo dhan baa loo yeedhay oo ofisiye waxa dhaqaano waxaa lagu yidhi raggaas darajada sare leh waxaad keentiin xal lagaga hortago teknolojiga cusub macluumaadka la dhigaya ah dadkan xorriyadoonka neefsanaya dhinac walba waan ka neeftii waan ku adkaynay caanihii baan u diidnay biyihii baan u diidnay waxaan u diidnay subagii waxaan u diidnay saliidii way kici waayeen waxaan u diidnay wax walba noloshii baan cidho ku noqonay ininka waxaan naga rabnaa sidee baan halkaana u aamusiinaa bal halkeena ayaa lagu yidhi su-aashu markaa waxa weeyaan cumar albashiir wuxuu ku yidhi Facebook dowlad igama qaadaysiin ee kaale xoog iga qaada kaale wadanka burburi dad kale markaas maxaa keenay Sisi wuxuu yidhi cadowga koobaad een leeyahay waa Facebook ninka la yiraahdo Maxamed muxuu ahaa magaciisu Salmaan wuxuu yidhi wuxuu sameeyay dubab electronic ninkii ka soo horjeestaba wax ka baabi'iya dubab kaaba Djibouti la soo wadaa in dadka la soo weeraro meelaha wax ku qoran dubab electronic waa diqsi electronic la soo dirayo oo lacag la siinayo milyaar ah oo burburinaya wixii dadku ay ku hadlayaan oo dhan ka daba tagaya qofku halkuu jooga dagaal la galayo waxaas oo dhan waxa loo sameeyo limaada Facebook phobia limaada baa looga cabsoonayaa Facebook su-aashu waa taa weyn waxay sheegaan culimada bulshadu sida kitaabkan iyo kitaab kale ku qoran waxay sheegaan ummadii si ay u gaadho xaqiiqa ay u bislaato waxay martaa 4 marxaladood dictatoradu ma yaqaanaan 4 marxaladood marxaladda koowaad waxay dhahdaa marxalatu alla mubaalaat marxaladda koowaad etaabka koowaad jaranjarada koowaad waxay dhahdaa marxaladda qofku uunan dareenkiisa oo baabi'iyo wax kastoo dhacaya ani maxaa igala socdaa ani ma itaabsatay mi alxamdulilah hebel baa la xidhay ani layma xidhin alxamdulilah reer hebel baa la baabiyey annakana la baabiyin alxamdulilah marxalatu alla mubaalaat baa dhahdaa marxaladda alla mubaalaadku waa marxaladda ugu xun ay ummaduhu maraan diraaso lagu sameeyey ma aragtay markii dhaweydee rabiica ama barantaaga carabta u dhacay tawarda carabtu lagu sameeyey waxaa la yidhi marxaladaas waxay jirtay 30 sano Masar marka alla mubaalaadku waxay leedahay 3 arrimood bay leedahay marxaladda alla mubaalaadka marka la baaray waxay leedahay 3 arrimood oo muhiim ah arinta koowaad waxay leedahay samtun muriib dad aamusan laakiin shaki ku wada jira dadku ay aamusan yihiin hadduu qof hadlo waxay ku leeyihiin waa la soo diray la socoya
samt way aamusan laakiin waa muriib maaha aamus waa muriib hudu gariib baa haddana labaa waa dad degan laakiin waxay u degan yihiin si qariiba waxbay wada sugayaan saddex intidaar almunqid waxay ku wada jiraan wada sugayaan badbaadiye ilaahay noo keenanin waxa naga saara hadi almarxala marxalatu lamubaalaat waxay dhahdaan culummadu way raagi kartaa iyadoo la eegayo bulshada caynka waa burata wayna gaabnaan kartaa laakiin ummad walba way martaa marxalada shibta ma arkayno ma hadlayno mana maqlayno sumun bukmun cumyun way maraan marxaladda labaad waxa weeye marxalad iyaduna taas aan ka hooseyn oo la dhahdo marxalatu tacbiir binukat baa la dhahdaa marxalad dadku ay ku cabiraan waxay cabirayaan qosol komikad nukat nukadkaas marka qaarkood riwaayad buu noqdaa marka qaarkood nin komikadiinaya soo baxa marka qaarkood dhalinyara wax si u sheegaysa nukat si yaro komikada u sheegaan shacbiga ugu nukad badanna waxa shacbiga loo yaqaano masaalida shacbu nukad baa dhacdaa dad baa ku qaatay xataa master iyo doctora wax walba waxay ku cabiraan nukad way ku neefsadaan marka dadku nukad bay sameeyaan nukadka waxaana aad loogu sameeyaa komikada iyo laga tuucsadaa oo aad looga hadlaa waa dowladda iyo madaxda dowladda magac baa loo bixiyaa maxay iyo magac aan sheegin iminka iyo dadka loo bixiyaa wasiiradu magac bay yeeshaan direkteeradu magac bay yeeshaan madaxweynuhu magac buu yeeshaa waxa ka agdhow magac bay yeeshaan saas baa loogu magacaaba marxaladaasi way ka soo baxeen samtigii aamuskii lamubaalaadkii taabay galaan waa marxaladaas iyadna mudday socotaa marxaladda saddexaad waxaa la dhahdaa marxalatu lbawx wixii loo lahaa nukadka ayaa kor loo qaadaa laakiin waxaa lagu sheegaa meelo dadku warka ay ka qaadi karayn ayaa lagu sheegaa aqalada hoostooda waa la shiraa kor baa loo qaadaa waa marxaladda saddexaad marxaladda afaraad waxaa dhahdaa marxalatu lkhuruuju min asunduuq sunduuqii lagu jiray baa laga soo baxaa okay marka ay dowladda jabuuti akhrisay waxaa loo yaqaano facebooka waxay ka soo saartay dadku inay soo dhaafeen marxaladii lamubaalaadka laba way soo dhaafeen marxaladii nukadka ee komikadahayd waxay galeen marxaladii saddexaad oo ah inay dadku waxay sheegayeen sheegaan laakiin ay ku sheegaan iclaamkuna waa halkee waa facebooka facebookii baa noqday meesha lagu sheegayo qof walba waxa uu qabo labo waxaa kaloo dhacday dadka dhegaysanaya meeshaasina tiradoodii marka la eegay aad bay u badan yihiin afar dadka laba nin oo dhalinyaro ah waxaan u diray inay iisoo dhegadhegeeyaan laba arrimood kow dadka idaacadda dhegeysta ee rumaysta labo dadka dhegeysta facebooka ee rumaysta intay isku jiraan waxay ii keeneen markaa wixiiba iisoo direen waxay dhahdeen kow labada nin magacooda inaan sheega maaha qasab laakiin waxay isoo sheegeen baa idin sheegaya kow waxay dhahdeen idaacadda rasmiga iyo telefisyoonka rasmiga ee reer jabuuti dadka dhegeystaayey waxay ka yar yihiin boqolkiiba markaan galanay 15 shicibka reer jabuuti yaa dhegeysta oo idaacadka dhegeysta okay boqolkiiba 15 haddaan boqolkiiba boqol ka dhigno waxaa rumaysta boqolkiiba 20 waxay idaacaddu sheegayso boqolkiiba 8 idaacaddu ma sheegaan halkay dadku macluumaadkoo ka qaataan warka waxay dhahdeen BBC da misdaaqiye leedahay way rumaystaan VO da misdaaqiye leedahay way rumaystaan Facebook waxa la soo dhigo qofka hadday ku kalsoon yihiin misdaaqiye leedahay way dhageystaan arrintaas waa arrinta koobaad weeye dad saa dhageysta boqolkiiba 67 bay soo sheegeen arrinta labaad ay soo sheegeen leedaas waxa weeyaan dadka idaacadda Jabuuti rumaysta waayo waxay dhahdeen waa qofka konton ilaa iyo wixii ka weyna iyaa qaarkood ay rumaystaan dadka u dhaxeeya bay dhahdeen 18 jir ilaa iyo 40 jir idaacadda Jabuuti ma rumaystaan wax kasta ku hadasho waxa kama soo qaadaan waan maqli jiray arki jiray weey markay arrinta ku qiyaaseen waxa Facebook ka socda waxay u arkeen inay ku jiraan marxalatul bawh maxaa marka bawxa ku xiga marxaladii al-khuruuj min as-suduq laga baxo marka cabsidaas baa keentay inuu madaxweyne geelle uu la dagaalamo waxa loo yaqaano Facebook cudur baa marka ku dhacay jiro isaga iyo muumin yare wasiirka cadaaladda oo saaxiibaan jirnay markaan yarin guri wada saxan jirnay waxa ku dhacay cudur ka dhado Facebook phobia waa malaadi waa marad sida Islamophobia ugu dhacay wadannada Yurub qaarkood oo phobia waa waxa qofka ku dhaca dad baa jira marka buur Quraan phobia ka qabo haday in dhacayaan mooda dad baa diyaaradaha phobia ka qaba dad baa maaragtay rasaasada maqlaan phobia ka qaba dad baa baabuurka socdo baska phobia ka qaba dad ninba phobia u leeyahay
madaxda dictaatoraduna waxay foobi ka leeyihiin facebooka wuxuuna maaragtay dhammaantood wax maqlaysa aniga facebook muxuu ka qaaday hoostiisa wuxuu ka leeyahay facebook way haystaa dadku tusaya markaas